culimadu yiraahdeen zinadu waxay kamid tahay dunuubta raadkooda iyo saameyntooda ubadka u gudubto oo ninka dustuska badan leh reerkiisa lagu ibtileeyaa ama gabadhiisa dustus bilowda ama ubadkiisa dustus bilaaba wa mimma la shakka fihi way waa deyn bay culimadu haddii ama hatana deynta qaadatana reerkaaga laga dhameystira wa imaam Shaafi'i rahimahullah عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا عما لا يليق لمسلم يهاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء في أهل بيتك فاعلمي من يزني في بيت ب1000 درهم ففي بيته يزنى بغير درهم الإمام الشافعي رحمه الله وردور صون هذا دمركينا دور صونان دوني وريك ددك حقوقدooda iyo acraadooda iyo sharaftooda u dhacay ee meel kaga dhacayo waxaad noolaanaysaa adigoon karaamo iyo maamuus lahayn law kunta hurran min sulalati majid ma kunta hatakan li hurmati muslimin hadaad ka soo jeedi lahay tafiir wanaagsan oo aanad zinadan aydan dhaqan u lahayn ma noqoteen mid dadka xuquuqdooda ku dunta buud macnaha waa lagaga horeeyay oo meel xun ayaad markaa ka xarig haysaa meel xun baad ka xarig haysaa oo yaana waxa weeye uruuqdaadii hore bay qaarsada ahaayeen buu Imaam Shaafici waa wax la jarribay way zinadu waa deyn buu Shaafici hadaad amaahato gurigaaga laga magdhabayaa ogow ninka guriyaha dadka kale kaga zinaysta 2000 dirham gurigiisa bilaash baa laga zinaystaa buu Imaam Shaafici rahimahullah wa iqaab wa hikma rabbaniyah ta ogow waligaaba suriyooyinka madow hadaad istaagto adna suri madow ma loo taagay dadkaagi waa xaqiiqo way